isbeddelka siyaasadeed ee gobolka. Waa cayn ma isbeddelka geeska Afrika saameyn noocma ayuu ku leeyahay Soomaalida. Saameynta siyaasadeed ee Itoobiya ay ku lahayd Soomaaliya shalay iyo maanta farqiga u dhaxeeya muxuu yahay? Soomaaliya qaabkee u wajahday siyaasadda cusub ee ka bilatay gobolka. Eritrea waxay qayb ka tahay meelaha isbeddelka siyaasadeed ee aragtida ku dhisan uu uga dhigan yahay waqal curatay oo omas lagu harraadanaada iyo duunyadii ku noolaadii intaanka dabadeed hirqadeen xareede. maxay tahay sababtu? Jamhuuriyadda Jabuuti raad caynkee ah ayuu ku yeeshay isbeddelka gobolka. Siyaasadda isbeddel ee sida lama fidaanka ah gobolka ka dhacday wadamada dabayaal halka gees ku dhaco Kenya, Uganda, South Sudan iyo Suudaan. Iba furka isbeddelku saameyn noocma ah ayuu ku yeeshay. dabaylaha isbeddelka ee geeska Afrika ka dhacaya waa baaxa soore iyo barwaaqo isbaal ordaya. mar kale waa dayrcad iyo diihaal iskarabyaal. Soomaal midkee uga dhigan yahay? geeska Afrika waxaa la isku yiraahdaa wadamada afarta Eritrea, Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti. waxaa halka ay degaan iyaguna dabaya wadamada Kenya, Uganda, Suudaan iyo South Sudan. gobolkani waxa uu muddo dheer weheliye rafiiq la soo ahaa colaado dhowr midab leh, fakhri iyo saboolnimo baarka fidhatay, xurriyad iyo xornimo doon, kacdoonna huursan kadeed, dhib iyo dhiigbax idinkeli ku noqotay. intaas iyo in kaloo jirtaa waa su'aale dabaysha cusubi ma bedeli karta. docda kale iyana ma fududa oo gobolka waxaa bariisaday aafooyinkii gumaystaha, raadadkii dagaalkii qaboobaa iyo kan xag jirka jahawareer wuxuu ka taagnaa amniga iyo badbaadada khayraadka dhulka. badweynta Hindiya iyo badda cas, marin biyoodyada mara oo halbowle ah, dhanka biyaha webiga Niil waxaa soo jira iyo wax kale oo ku hoos jira ayay timi dabayshani. doorkee bay ka qaadan doontaa nujubyada isbarkan ee bariisaday bogcadda la wada yaala geeska? ugu horreyn isbeddelka ka dhacay Itoobiya waxa uu saameyn toos ah ku yeeshay Itoobiya lafteeda. waxa uu khadka ka saaray nidaam dadka tirada yari talada gacanta ku hayeen, halka qoomiyadaha Oromada ah ay dalka siyaasad ahaan marti ka ahaayeen. in dalka Oromo xukunka qabataa waxay ahayd mid ka mid ah sumadaha isbeddelka dhacay. wejiga labaad ee isbeddelka geesku wuxuu nuur ka daartay oo nabad ku sooray colaadii ugu cimriga dheeray sida la isla ogol yahay ee ka jirtay qaarad weynta Afrika. waa heshiiskii dhex maray Itoobiya iyo Eritrea. wala uu heshiiskaasi gobolka kala kulmay falcelin laba weji leh, hase ahaatee waxa dunidu ka marakaceen inuu yahay ilays geeskii madooba ka bidhaamay. xogayaha guud ee qaramada midoobay sida uu sheegay wuxuu ku macneeyay isbeddelkaasi iyo heshiiska labada dhinac dhex maray inuu yahay ufo iyo rajo cusub oo ku baahi doonta Afrika idilkeeda. sida uu qoray wargeyska The New York Times, jubdhiba isbeddelka gobolku wuxuu saameyn taban ku yeeshay inta geeska dabataal. waxaa timi inay qiimo beelaan isku xidhkii kaabayaasha dhaqaale ee dekedda Lamu ee Kenya, koonfurta Suudaan iyo Ethiopia. isbeddelka hortii muhiimadii qorshahaasi lahaa iyo ku talagalkii laga lahaa ayaa lama filaan taabtay. Soomaaliya marxaladihii gobolka lagaga noolaa waxay ahayd wadanka kaliya ee xaaladihii qadhaadha sida arxan darrida ay u saameeyeen. waxaa laga yeelay wadan lagu dhugtamo, xiisadeeda siyaasadeedna waxaa laga dhigay kuwa aan bari dhul dhigin oo waxaa la lamataanayay siyaasad iyo nolosha Soomaalidaba mowjadaha xagaagii ka dhaca badweynta Hindiya ee cartanka iyo cirabootiga ku caanka ah. lugtii labaad ee dabaysha isbeddelku qaatay waxay aana nabadeed u listay Soomaaliyadii sidaasi ahayd kadib kolkii Eritrea kaarkii ka go'ay. waxaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka degay Asmara, martiqaad uu ka helay dhigiisa Isayaas Afwerki. waxaa Asmara ka dhacay heshiis laba dal ah. heshiiskaasi wuxuu abuuray marxalad cusub oo nabdoon. tegistii Asmara ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu calaamad iyo sumad cirjiidheen ah u noqday dhammaadka doorkii wadanka Eritrea ku lahayd nabadgelyo darradii Soomaaliya iyo doorkii gacansiinta argagixisada. waxaa gabalbaas u dumay dhaqdhaqaaqyadii xag jirka ahaa ee Al-Shabaab oo halkaasi ku waayay taakula intii qarsoonayd hiil hubayn iyo tababar.
dabayshan gobolka Soomaaliya kama indhasaabin tafaxaydashada sidii ay uga faa'iideysan lahayd Eritrea gacmaha midig iyo bidixba way ku soo dhaweysay Soomaaliya inkastoo isbeddelka tallaabooyinkiisii 1 iyo 2 ay saameyn taban ku yeesheen jamhuuriyadda Djibouti oo weliba xanaf iyo damqasho hor le qayla dhaamisay iyadoo ka biyadiiday heshiiska Soomaaliya iyo Eritrea haddana Soomaaliya iyadoo ogsoon wada dhalashada Djibouti inay birmageyda tahay taasi beddelkeeda danta guud ka midha dhalinteeda umay laba lugoodin dooda kale Soomaaliya waxay horseeday dhexdhexaadinta laba tal Eritrea iyo Djibouti dhexdhexaadintaasi oo keentay in wada hadal u bilaamo labada dal taasoo iyana Djibouti ka dulqaaday wahabkii ku yuururay inkastoo saameynta isbeddelku ku yeelanayo Djibouti mugdi badani ku gadaaman yahay waxa ay ka dheeftaan ay ku xidhan tahay wax u eeg qorituur ama rajada shilinka dirmise daaba haddaba aan eegnay isbeddelkani Soomaaliya maxay ka macaashtay maxaa kaga baaqsaday sideese u saameeyay si aan faham buuxa uga wada qaadano aan dib ugu noqono ka hor isbeddelka sidii xaalaha Etoobiyadii lagu maamuli jiray buuggii meelas qoray waxay ahayd mid Soomaaliya kala daadinteeda iyo kala abtirinteeda ka dhex aragta danaheeda si cawaj ah muuqaal ahaan aad u foorxun oo shacabka Soomaaliyeed damqasho xoogan ku haysay ayay faragelin ugu haysay Soomaaliya maalma tagay markaynu dib u celino Itoobiya waxay Soomaaliya ula macaamilaysay macaamilku isiran faragelin qaawan oo gaadhay heer madax dhaqameedka beelaha ay harimaheeda markay doonto kala xaajoogto waxay Muqdisho ku lahayd xafiisyo sirdoon waxay gaadhay heer safaaradoodu ku dhex taalo xayndaabka fiilada looga taliyo dalka ee fiila Soomaaliya waqtigii Soomaaliya ka baxday kumeegaadhkii ee u guurtay geedigii federaalka Itoobiya waxay noqotay caqabadii ugu adkeyd ee boqnaha goysay nidaamkii federaalka ee loo guuray madaxweynaha dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxay ka dhigtay kuwa isku awood ah waxa Soomaaliya kala kulantay dhibaato baaxadeeda leh sirarka Soomaalidu ay yeeshaan goob joogayaal ayay ku lahaayeen waxay farageliyeen xafiis kasta maalmahaasi xasuusta leh kolka aynu dib u jaleecno waxaa ka mid ahayd dhiig bixii dhanka siyaasadda arrimaha dibadda oo Itoobiya gaadhsiisay inay maamul goboleed kasta gaarkiisa u darajayso aan soo qaadano safaradii joogtada ah ee Itoobiya ku tagi jireen madaxdii maamul goboleedyada ee waqtigaas madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku maqnaa Itoobiya ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdigiisa oo u dhoofay wadanka Itoobiya ayaa waxa garoonka macmalka ee magaalada Garowe ka qaaday diyaarad gaar ah madaxweyne gaas ayaa saxaafadda u sheegay in safarkiisa Addis Ababa uu ku qotomo wada xaajoodka u dhaxeeya Puntland iyo Itoobiya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyaga oo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya wafdiga hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Xayla Maryam Dasalam maanta taasi ma jirto waxa Soomaaliya iyo Itoobiya u wada macaamilaan nidaam laba qaran oo ku dhisan is-ixtiraam iyo gacan dhaafid la'aan waxaana la macaamilo oo kaliya dawladda heer federaal oo kaliya ma jiro xafiisyo sirdoon oo Itoobiya Muqdisho ku leedahay ma jirto safaaradii Itoobiya ee ku dhex tiil qasriga dalka looga taliyo ma jirto Muqdisho dhexdeeda lagu muuneeyo magacyadii aad ka sii xasuusataan General Gabre ruled from the Ethiopian embassy. The first man I want to see works in secret. Hello. Yes. We're warned against filming, but we keep the camera running. The reason for all the secrecy is because the Ethiopians downplay the power they wield over the Somali government. This man, Colonel Gebre, is the only one that can open the doors to the 4 men I want to see. He's the most powerful man in Mogadishu. waqtigaasi dunidu indha kulul ayay ku eegaystay faragelinta noocaasi ah Alexander Ranson oo ah midowga Yurub wakiilkii u joogay geeska Afrika asagoo falanqeynaya arrimaha gobolka waxa uu faragelintaasi ka yidhi
Soomaaliya kuwa ula dhaqmaya qaabkaasi iyagoo aan danaynayn waxay maalin bixin doonaan qiimaha ay dayaceen, halka kuwa isku dayaya inay ku ciyaaraan ama manipulate gareeyaan ay iman doonto xilli ay faraha kaga gubtaan. isbeddelka geeska ka dhacay marka laga yimaado inuu yahay isbeddel laga soo dhaweeyay Itoobiya iyo mid gobolka u soo jiiday nabad iyo is-ixtiraam lagu wada noolaa. mar kale isbeddelkaasi wuxuu dhaliyay in miiska la soo saaro in gobolka dhaqaale ahaan la isku furo. arrintani waxay macno iyo dhadhan u samaysay fursad muddo dheer ay sugayeen marsooyinka Soomaalidu. isbeddelka gobolka si aan isula fahanno aan wax yar dib ugu noqonay qaababkii isbeddelka caalamku soo maray iyo siday ahaayeen. sida taariikhda ku haysan waxa hore caalamka u soo maray shirkii ka dhacay Westphalia, kaasoo ahaa geedigii lagaga hoos baxay maxmiyadihii khaasatan imbaradoriyadii Roomaanka. waxaa taasi ka dhashay waxaan loo yaqaano waddan leh xuduudo. mar kale waxaa heshiiskaasi si dadban looga baxay 60meeyadii qarnigii tegay, taasoo reer galbeedku u guureen nidaamka loo yaqaano globalization. waa mar saddexaad waxa maanta dunida idilkeed ku foorara isbeddel xawaareynaya oo ciryo dhula, kaasoo loogu waco Global 3.0. waa nidaam 300 milyan ee ruux meel ku wada nool ama 500 milyan ba loo samaynayo gobol dhaqaale ahaan isku xidhan economic regional bloc. Maraykanka, India, Shiinaha, Canada iyo Australia isku dhinaca Ruushka iyo wadamo kaleba arrimahan geedigan looma kala maqna. dhankan kolkaad ka eegto ee dhinaca isku tiirsanida dhaqaalaha iyo isufuranka adduunyada iyo geedigan cusub ayaa waxa uu sii xaqiijinayaa fursadaha marsooyinka Soomaalida. dhaqaalayahanka Soomaaliyeed waxa ay qabaan inay xal ku yahay xalinta khilaafaadka idilkii, taasoo la macno ah in fikradaha dhaqaale isku furka gobolka ay tahay aynu wada guulaysano win-win situation, iyadoo meesha ka saaraysa aragtidii muddada dheer gobolka ragaadisay ee ahayd aan anigu faa'iido adiguna khasaar, zero sum game. isku soo wada duubo isbeddelkii ka dhacay Itoobiya waxa uu rajo wanaagsan u yahay gobolka oo dhan haddii ay noqoto dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo is-ixtiraamka dawladaha. Soomaalida dhexdeeda khaasatan Somaliland waqooyi iyo dhanka koonfureed ayaynu iyadana eegi doonaa, balse marka hore aan ku hakanno dhowr qodob oo la odhan karo waxay qayb ka yihiin natiijada Soomaaliya ay ka hayso isbeddelka geeska ka socda. 1. Soomaaliya waxay ka kororsatay inay meesha ka saarto faragelintii qaawaneed ee ka dhanka ahayd qarannimada iyo madaxbannaanideeda. 2. inay kaalin muuqata ka ciyaarto isbeddelka gobolka, taasi oo ku dhisan nidaamka aan wada guulaysano. 3. waxa gudaha timi xasilooni, taasi oo ka dambeysay kolkii ay meesha ka baxday doorkii faragelinta ee dariska. 4. waxay Soomaaliya fursad u heshay inay gudaheeda qaabayso khaasatan dhinacyada ciidamada, nidaamka maaliyadda, ammaanka, la dagaalanka argagixisada iyo dib u dhiska dalka. dhanka kale dhaqaalaha kolka laga yimaado qaabaynta nidaamka maaliyadeed waxaa iyaduna xusid mudan in Soomaaliya ay fursad u heshay dhoofinta dalagyada ay xilligan ka mid yihiin mooska iyo sisinta, oo sanadkan 2020 dalalka loo dhoofinaya ay 7 marayaan. 5. waxa si toosa bannaanka u yimi ahmiyadda ay gobolka iyo dunidaba u leeyihiin marsooyinka Soomaaliya, kuwaasi oo mustaqbalka dhow habi doona lagana quudin doona Afrikada bilaa badda. waxa marsooyinka Soomaaliya ka dhoofi doona badi khayraadka dihin ee Afrikada madow, sidoo kalena waxaa ka degi doona badeecadaha ugu badan ee loo wado Afrikada bilaa badda. 6. ugu dambayn, Soomaaliyadii shalay shisheeyuhu ku dhugtamayeen waxaa beddelay Soomaaliya dunidu u soo baratamayso. in wax loo yeedhiyaa waxaa beddelay iyana weedheedoo la dhagaysto. aan ku soo gunaanadnay isbeddelka gobolka midab ahaan waxaynu ku suurayn karnaa baalasha qurxoon ee aan laga dayba sugan karin ee balanbaalista. waxyaabaha dhacaya ayaa iyana inta iminka la arkay ah kuwa wareegga ay samaynayaan uu yahay cabirka 360. Soomaaliya iyo Somaliland kolkaynu ka nimaadno gilgilka labada dhinacba uu gilgilay hadalqaadkii safarka madaxweyne Farmaajo ee Hargeysa. waxaa shaki ku jirin in dhaqaaqa xiga dhaqaaqaasi uu keeni doono midnimo dhab loo mido.
dhanka isdiidooyinka yaryar ee u badan baqaha dhanka siyaasiyiinta Somaliland ee la halmaala sidee shacabka uga shubtaan wixii aad ku shubteen ayaan iyada xal u helideedu waqti badan qaadan doonin sida muuqata waxa daneeyayaasha dunida ee isbedelkan iyo madaxda gobolkuba ay sidoo kale ka dharagsan yihiin gudaha Somaliland midnimo doonka iyo midnimo diidka tirada boqolleyda ay kala marayaan tanna waa tan sababi doonta inay hadalli siyaasiyiinta Somaliland ay ula yimaadaan ku dhiirashada xaqaa'iqa cudurdaarka madaxweynaha Soomaaliya farmaajo bixiyay iyo qaabkii madaxweyne biixi u aqbalay oo labaduba kadiso aha ayaa iyana daaha ka rogay badheeraha ummadii waqooyi ee midnimo doonka ah kuwaasoo muddo dheer hulaabnaa waxaanay ahayn doonistooda London waxaa lagaga dhawaaqay ururkii u horreeyay ee midnimo doonka kaasoo ay abaabulayaan aqoon-yahano ka soo gala jeeda Burco Hargeysa Boorama Sool iyo Sanaag iyaba waa isbedelka socda ee geediga hayaanka lugta labaad ee u qaada ayaan madmadow ku jirin filashada dabata agaasimaha fulinta